Reen albaabka ayuu istaagay asagoo wadnaha sayd u garaacmayo wuxuuna la yaabay sababta uu Toshihiro markaasi Kana u soo weerarayo wuxuuna arkay wejiga uu markaasi lahaa Toshihiro isma uusan dhihi jirin Toshihiro waxa uu leeyahay weji naxariis ah laakiin wejiga uu hadda leeyahay ma uusan ahayn wejigiisa dabiiciga ah waxa uu ahaa sida weji bahal dad cuna oo kale Reen meelaha ayuu eegay kadibna wuxuu soo qaaday alwaax markaasi miiska jabay dhinaca Toshihiro ayuu soo dhaqaaqay wuxuuna siiri sababta ay Kana u soo weerar lahaa Toshihiro inay tahay maadaama uu Toshihiro iyada awoogeed yahay Reen gadaal ayuu ka soo maray inkastoo uu rabin inuu dhibaateeyo odaga weyn laakiin waxa uu rabay inuu seeftiisa ka qaato sidoo kalena uu joojiyo waxa uu waday markaasi Toshihiro uu ka naxay kadibna wuu qayliyay markuu dhulka ku dhacay Reen wuxuu u foorsaday si uu soo qabsado seeftiisa laakiin la yaab waxa ay Toshihiro inuu si degdeg u dhaqaaqay kadibna uu ka horqaatay seeftii waana uu ku soo weeraray nasiib wanaag wuu ka booday Reen inta aysan seefta ku dhicin Toshihiro wuu dhaqaaqay mar labaad ayuuna bilaabay inuu Kana weeraro iska celi ayuu ku qayliyay markaasi Reen Kana way ka leexatay weerarkiisa kadibna gacantii ayay iska qabatay markaasi odaga weyn gacantiisa uu kala soo bixi waayay waxayna isticmaashay awoodeedii dhan si uga faramarojiso seefta kadibna odagii seefta way ka dhacday gacantiisii isla markiina Reen wuxuu u dhaqaaqay inuu seefta dhulka ka qaato Kana waxay damacday inay markaas odaga gadaal u tuurto laakiin awoodeeda ayaa tiro badneed kadibna odagii duulay ayaa daaqada ka soo baxay Reen isla markiiba wuxuu ka daba baxay odaga isagoo ka baqayay inuu soo kaco markaasna wuxuu arkay inuu suuxsan yahay Kana way ka soo daba baxday iyadoo yaaban maxaa ku dhacay muxuu ii soo weerarayaa ayay dhahday iyadoo aad u yaaban markaas ayuu ku yiri Reen waa yokai shakino kuma jiro kadibna wuxuu soo qabtay xarig jeebkiisa ku jiray gacmihiisa ayuu ku xiray agagaarka digsigiisa yokaiga ma waxay dhex geli karaan dadka ayay weydiisay haa markii laga soo tago waxyaabo tiro badan wuxuu u baahan yahay in laga saaro kadib caadi miyuu noqon doonaa markay Kana weydiisay Reen uu ka labalabeeyay laakiin uu u baahan inuu runta u sheego may dhammaantood kama badbaadaan Kana wejigeedu wuu isbedelay Reenna wuxuu ka xumaaday inuu runta u sheegay Toshihiro waxa uu ahaa familka kaliya u haray oo leedahay waxaana laga yaabaa inay isagana weyso Kana dhulka ayay fariisatay Toshihiro agtiisa madaxa ayayna gacanta ka saartay waxaana oo dhan sababteeda ayay ku dhaceen yokaiga waxay u galeen si aanay ii soo gaaraan nin ayaa u yimid kadibna Reen ayuu wuxuu u sheegay ninkii uu raadinayay inuu guriga ka baxay markaasi Kana wuxuu u fiirisay Reen si la yaab leh isla markaas wuxuu u sharaxay inuu helo Hiroto Kana way wareersaneed way rabtay inay aargoosato laakiin ma aysan rabin Toshihiro kaligiis inay xagan kaga tagto isagoo saan ah Reen ayaa wuxuu sheegay inuu isaga ilaalin doono Toshihiro qof ayaana Kana Yamabushi ah waa laga yaabaa inuu nacaawiyo Kana iyadoo ka xun ayay markaasi madaxa ruxday wayna istaagtay kadibna waxay eegtay Reen seeftiisii isna wuu fahmay haddii ay tahay tani waxaad rabtid ayuu dhahay markaasi isoo kala labaynaya oo seefta u taagaya haa waan rabaa awalba cadaabta ayaa la ii diri lahaa ayay tiri Kana waxay rabtay waxyaabo badan inay dhahdo waxay rabtay inay u sheegto arrintii Sakura laakiin waa u sheegi weysay sababtoo waxaa laga yaabaa inuu naco maadaama ay dhuumatay intay ka celileen ninkii kufsanayay aad ayay uga xumid waxay samaysay laakiin waa ogtaa wixii dhacay inaysan bedeli karin waxa ay samayn karto inay hadda tahay inay ka aargoosato ninkii markaasi dilay hooyadeed iyo sidoo kale Michi Kana waxay markaas soo qaadatay seeftii waxayna u dhaqaaqday dhinacii uu tilmaamay ninkii aad ayuu la yaabay inuu arko naag markaasi seef wadata laakiin markii uu hal mar eegay Reen iyo sidoo kale digsi xirxiran oo oday ah iyo naag markaasi calaamad la yaab la gacanta ku leh waxa uu go'aansaday inuu saddex gelin kadibna gees ayuu uga baxay Kana markaasi waxay qaaday wadada tooska taasoo markaasi ka baxaysay tuulada oo dhan Hiroto aad ayuu u sarxaansanaa wuuna dhacdhacayay laakiin wuxuu ku khasbay sida ugu dhaqsiya badan inuu tuulada iskaga tago naagtii uu marka la soo seexday ayaa waxay weydiisatay lacag laakiin wuu diiday kaliya intaas uguma tagin wuu garaacay si uu markaasi u tuso waxay iyadu tahay kagadaal markuu u tuuray gabadhii kadib madaxa ayay ku dhufsatay miiska waxa uu isku dayay markaasi inuu soo kaxiyo waxauna arkay markaasi inay dhimatay kadibna waxa uu go'aansaday si ugu dhaqsiya badan inuu tuulada uga cararo oo uu ku dhunto keynta asagoo u arkay meeshaasi inay nabad u tahay waxa uu helay dhagax aad u weyn oo geed ag yaalo markaasi dhagaxii ayuu ag jiifsaday kadibna indhihiisa ayuu kabsaday waana iska seexday markiiba mar dambe
qoraxda ayaa soo baxday wayna kululaatay. Kadibna wuxuu maqlay sharqanbir. Kadibna indhihiisa ayuu furay asagoo aad u daalan. Waxa uu u maleeyay inuu riyoonayo. Gabadhiisii ama gabadhii uu soo kariyey ayaa hortiisa taagneyd, iyadoo markaasi u ahayd tii uu dilay maadaama ay ceeb u keentay familkiisa. Markaasi wuxuu gartay inay maskaxdiisa khamriga ku ciyaaraysay. Dhaqso kac ayay markaasi ku tiri iyadoo seefta ku haysa. Si xun ayuu u egay. Dhalanteedkaygu halli karaa ayuu markaasi dhahay. Hooyaday ayaa dishay ayay tiri Kaana iyadoo xanaaqsan. Hiroto aad ayuu u baqay. Kaana lagama yaabo inay arrintaa ogaato sababta wuxuu dilay xaaskiisii markii ay Kaana dhimatay kadib. Kaana amarkii ayay ku celisay. Markani sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu cagiisa ugu istaagay. Wuu la yaabay gabadhiisa oo hortiisa taagan sababta wuxuu arkay iyadoo dhimanayso oo dhiiga ka dhamaaday. Mar kale ayuu fakaray isagoo aad u naxay. Wuxuuna is yiri qofkan ku hortaagan Kaana ma aha ee waa shaydaan. Iga fogo ayuu yiri asagoo markaasi gacmaha ruxaya, laakiin Kaana ma isa dhaqaaqin. Waxay saartay afka seefta xabadkiisa. Ma waxaan u baahanahay inaan kala jaro xabadkaaga maadaama aad bilaa qalbi tahay, mise waxaan u baahanahay inaan kaa jaro madaxa maadaama aad ku fikirtay waxyaabo xun. Hiroto wuu naxay. Adiga waxaad tahay ruuxaan. Kaana way dhoola cadaysay. Adiga wax fikrada kama haysid waxaan anigu noqday. Garabka ayay ka gelisay seefta, kaasoo markaasi odagii ka qayliyey. Degdeg ayuu markaasi dhiig uga soo baxay, taasoo maradii ka wasakhaysay. Wuxuu markaasi dareemay cabsi saa'id ah, midaasoo aad uga farxisay Kaana. Inta aysan kusii fogeynba ka hor waa uu dharbaaxay, taasoo ku kaliftay Kaana markaasi inay seefta gacanteeda ka dhacdo. Kaana oo aad u caraysan ayaa waxay damacday inay seefta soo qabato, laakiin Hiroto ayaa laaday. Kagadaal ayayna u dhacday. Isla markiina wuxuu damcay inuu mar kale iyada laado. Laakiin markani Kaana gacanta ayay ku qabatay lugtiisii oo u soo socota, markaasna kagadaal ayay u tuurtay. Hiroto kagadaal ayuu markaasi u dhacay asagoo Kaana eegayo. Markii ay soo istaagtayna wuxuu bilaabay inuu habaartamo. Waan khaldanaa ayay tiri Kaana. Anigu uma baahni seef si aan adiga kuu dilo. Waxay ka soo qabatay koolarka iyadoo kor u qaadayso markaasi. Kadibna kagadaal ayay u tuurtay. Dhabarka ayuuna ku dhufsaday geedka. Wuxuu bilaabay xanuun dartii inuu ooyo. Kaanana awood aad u tiro badan ayay gacanteeda ka dareentay. Kadibna dhuunta ayay qabatay waxayna bilowday inay si saa'id u ciijiso. Midani waa midii aad hooyaday u dishay. Kadibna saa'id ayay u sii ciijisay ilaa ay dhuuntiisa ka yeertay kac. Kadibna ninkii meesha ayuu ku dhacay. Midanna waa midii aad Michi ku dishay. Hiroto dhulkii ayuu ku ururay. Dhuuntiisana way qaloocsantay. Indhihiisana banaanka ayay u soo baxeen. Kaana waxay dareentay gacanteedii oo markaasi awoodda ka sii baba'ayso, iyadoo markaasi xanaaqeeda uu sii degayo. Kaana dhulka ayay fariisatay Hiroto agtiisa, iyadoo markaasi og inuu dhintay, umana baahnayn inay midaasi xaqiiqsato. Waxay aad ula yaabtay eberka ay dareemayso. Ma isa dareemin wax farxada ama murugo ay ka maroganayso dhimashada ninka soo koriyey iyada. Waxa kaliya ay dareemayso waxay ahayd eber gudaheeda. Kaana waxay maqashay sharqanta geedaha wayna istaagtay. Waxay ogaadeen inuu reen yahay, kaasoo soo dabagalay si uu u ogaaday inay fiican tahay in kale. Taasi way ku faraxsaneed. Inkastoo ay jecelneed wehelnimadiisa, haddana saasoo tahay lagama yaabo inay dareento inta uu dareemayo. Waan fiicanahay ayay tiri. Sharqantu way soo dhawaatay, laakiin isaga dhinaca kale wuu dhintay ayay tiri. Qofkii uu soo dhawaaday Kaanana waxay garatay inay khaldaneen. Ma uusan ahayn reen ee waxay ahayd gabar dhalinyara taasoo qabta marabinka, sidoo kalena ubax tinta ugu jiro. Kaana aad ayay uga naxday Michi.